bal suurayso daawade haddii hawada aad ku neefsanaysid ay isku beddesho sun lagu dagaalamo dagaaladii aynu naqaanay ee laisku adeegsan jiray hubka iyo madaafiicda ay beddelaan curiyayaal ilma aragtay ah oo ka kooban fayrasyo iyo bakteriya gacan ku samays ah oo lagu dhex baxrimiyey dhismayaashan qafilan ee ilaalada adag laga hayo iskaba dhaaf in qof u galee xataa aysan iftiinka qorraxdu u gudbin har iyo hameenna ay ku jiraan saynisyahano hawshoodu tahay curinta xanuuno hub ahaan loo adeegsan karo kasoo bilow ebola corona iyo xataa fayrasyo daawo loo waayey ayaa qolalkan qafilan ka soo baxay haddii aad ogeydna duni isugu goodisa hubka nuyulyarka iyo saanad ciidan maanta waxaynu maraynaa wadaha waaweyn isugu goodinayaan waxa loo yaqaano hub biologic ah oo ah in xanuunka loo adeegsado hub waxaad curinaysaa fayrus kadibna si fudud ayaad hawada ugu sii daynaysaa boqolaal kun oo qof ayaadna ilbiriqsiyo gudahood ku dilaysaa waa falsafada ay dalalkani raacaan haddaba muxuu yahay dagaalkan biologiga ah saamayntiisu intee la eg tahay xaggeesa lagu sameeyaa waa su-aalaha uu falanqayn doono muuqaalkani inta aynaan u gelin aylaawin inaad channelka subscribe saarto sidoo kalena aad follow dhahdo pageka Facebook magacaygu waa Cali Maxamed halkanna waa Gob Media inta aynaan u gelin muuqaalkeena aynu milicsano waxa ay yihiin shaybaaradan ee aynu ka hadlayno sida caadiga shaybaarku waa meelaha ay saynisyahanadu ku daraaseeyaan noolaha yaryar fayrasyada bakteeriyada iyo waxa loo yaqaano funguska waxayna u daraaseeyaan ujeedooyin cilmiyeed iyo kuwa caafimaad laakiin qaar kamid ah shaybaaradan waxa loo adeegsan karaa cilmi baarisyo xasaasi ah oo ku aadan horumarinta hub weerar ahaan loo adeegsan karo shaybaaradan waxa loo kala qaybiyaa 4 nooc oo kala ah nooca koobaad BSL hal waa shaybaarada fudud badanaa waxay ku yaalaan jaamacadaha iyo dugsiyada caafimaadka waxaana lagu bartaa oo lagu daraaseeyaa noolayaasha aan waxyeelada lahayn BSL 2 waa shaybaarada la tacaala cudurrada fudud sida noocyo gaar ah oo kamid ah bakteeriyada iyo fayrasyada la daaweyn karo shaybaarka BSL 3 waa shaybaarada horumarsan ee lagu baaro cudurrada halista ah ee hawada ku faafa sida qaaxada iyo waxyaalaha la midka ah shaybaarka BSL 4 waa heerka ugu sarreeya shaybaarada uguna ilaalada adag waa shaybaarada aad u yar oo ay saynisyahanadu ku daraaseeyaan fayrasyada ugu khatarta badan dunidan sida corona iyo kuwa la isla shaybaaradan ayaa waxaa lagu hindisaa fayrasyo cusub oon weli daawo loo helin sida uu sheegay wargeyska ka faalooda sayniska ee lagu magacaabo Nature waxaa jira koror degdeg ah oo ku yimid tirada shaybaarada lagu bacrimiyo xanuunada oo qaybtood laga dhisay meelo aan horey loogu barin arrintan oo dhalinaysa su'aalo badan xarumahan iyo cidda kormeer ku samaysa ee ka warqabta waxa gudahooda ka socda shaybaaradan waxaa loo naqshadeeyay qaab injineernimo oo heer sare ah si loo hubiyo inaysan waxba uga bixin banaanka xataa dhibic kamid ah curiyayaasha lagu bacriminayo waxayna ku tiirsan yihiin nidaamyo hawo sifeeyayaal ah oo hubinaya in hawada banaanku ay soo gasho oo hawada gudaha ku jirta aysan banaanka u bixin si aysan waxyeello ugu geysan deegaanada ku hareeraysan laakiin markaynu milicsano khaladaadka joogtada ah ee bini'aadamku ay geystaan waxaynu ogaanaynaa in dhammaystirnaantu ay tahay malaawaal oo maskaxda aadanuhu ay samaysatay khaladka yar ee goobahan ka dhaca ma noqdo shil shaqo oo fudud ama khalad sahlan balse waxay bilow u noqon kartaa dhimbil masiibo ah oo caalamka oo dhan ku fida lana xakamay kari waayo mid kamid ah waxyaalaha ugu halista badan ee warshadaha lagu sameeyo oo waxa loo yaqaan cilmi baarisiyada kor loogu qaadayo shaqada ama halista virus cayiman haddii aynu si kale u dhahno waa tijaabooyin lagu faragelinayo idashadayaasha fayrasyada si looga dhigo kuwa kasii halis badan nooca hadda ay yihiin ama si dhaqso ah u faafa waxaana lagu marmarsiyoodaa marka fayrasyada noocaan ah la hormarinayo marmarsiyayaal ay kamid yihiin in ujeedadu ay tahay fahamka sida noolayaashan ay si dabiici ah ugu hormari karaan si looga sii diyaar garoobo isbedelo dabiici ah oo ku yimaada qaab samaysimkooda khabiiro badan oo ay soo xigtay wargeyska New York Times ayaa ku tilmaamay qaab fikirkan inuu la mid yahay sida adigoo si ula kac ah dab ugu shiday kay qallalan kadibna yiraahdo waxaan dabkan ugu shiday kaynta si aan u arko sida ay ula tacaalaan dabdamiyaasha dabka kaymaha qabsada tartankan cilmiyeed ee waalan waxa uu tirtirayaa xuduudaha u dhexeeya cilmi baarisyada ee ku aadan difaaca iyo kuwa weerarka ah maadaama qalabka iyo khibradaha loo baahan yahay si loo horumariyo daawada cudur dhif ah ay isla qalabkaas iyo khibradaasi yihiin kuwa loo adeegsanayo horumarinta hub biologic ah oo lagu dagaalamo dabeecadda laba wajiilanimada waa daldaloolada quwadaha waaweyn ay ka faa'iidaystaan si ay u sii wadaan cilmi baaristan iyaga oo ka fogaanaya in dadweynaha caadiga ah ay ka shakiyaan marka la eego xog ururinada argagax leh ee la daabacay sanadihii u dambeeyay waxaa muuqata in dhaqaalaha dalalka waaweyn ay ku bixinayaan waxa loo yaqaano amniga biologikada ay dhowr jeer laba jibaarmeen 10kii sano ee u dambeysay iyaga oo gaaray bilaayin dollar oo inta badan ka yimaada miisaaniyadaha difaaca ee dalalkan waxaynu u jeednaa dalalka reer galbeedka ruushka iyo shiinaha xiriirkan dhow ee u dhexeeya hay-adaha militariga iyo shaybaarada biologiga ah wuxuu dib u soo noolaynayaa xusuusihii mahadhada ahaa uu reebay dagaalkii qaboobaa xilli xarumo ay kamid ahaayeen xaruntii la oran jiray Victor ee ku taalay Siberia iyo xaruntii Fort Detrick ee dhacday Mareykanka ay hindisayeen soona saarayeen barnaamijyo sir ah oo aad u halis badan
kuwaasoo lagu doonayay in cudurrada ay ka mid yihiin daacuunka iyo antaractida iyo fayraska loo yaqaan ebola loogu bedelo hub lagu dagaalamo. inkasta oo heshiisyada caalamiga ah sida heshiiskii mamnuucidda hubka biolojiga ah ay si cad u mamnuuceen horumarinta hubkan, haddana maqnaanshiyaha habab kormeer oo adag oo la mida kuwa lagu hayo hubka nukleerka ah ayaa ka dhigaya heshiisyadan kuwa inta badan waraaqaha la isdhaafsado ku kooban oo aan waaqaca isku bedelin. haddii aynu milicsano taariikh ahaan hababkii uu soo maray dagaalkan biolojiga ah kadib dagaalkii labaad ee dunida soo maray, adduunku wuxuu u kala qaybsamay laba xero, Maraykanka oo dhinac ah iyo midowgii Soviet oo dhinac kale ah. waxaa la filayay xilligaas in labadan quwadood uu dhex mari doono tartan nuclear, laakiin waxaa dhacday arrin ka halis badan arrintaas oo aysan cidna saadaalinayn. waxay galeen tartan ka halis badan kii nuclearka, tartan ciwaankiisu yahay hub biolojig ah. labada dhinacna waxa ay bilaabeen barnaamijyo sir ah oo lagu daraasaynayo cudurrada halista ah. yoolku ma ahayn helidda qaabkii loo daaweyn lahaa, balse waxay ahayd siday u fahmi lahaayeen sida loogu adeegsan karo hub ahaan. khatartu ma ahayn oo keliya jiritaanka barnaamijyadan, balse waxaa kasii darnaa in xilligaas adduunku uusan waxba ka ogeyn. fayrasyo, bakteriyo iyo walxo biolojig ah ayaa lagu kaydiyey laguna tijaabiyey xabsiyo iyo qolal xiran. khalad yar oo dhaca xilligaas ayaa keeni karay musiibo caalami ah. sheekada ugu cabsida badan ee laga diiwaangeliyey dagaaladan waxay ka dhacday Jabaan intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, halkaas oo xarun sir ah oo loo yaqaanay unuga 731 oo loo isticmaalay maxaabiistii dagaalka lagu soo qabtay. tijaabo ahaan rag, dumar iyo xitaa carruur ayaa lagu sameeyey tijaabooyin foolxun si loo daraaseeyo saamaynta cudurrada halista ah ku yeelan karaan jirka bini'aadamka. ujeedadu ma ahayn in la daaweeyo, balse waxay ahayd in la ogaado sida ay cudurradu u dili karaan qofka si dhaqso leh oo argagax badan, iyagoo sidoo kale raadin jiray xanuunka uu ka halis badan yahay anthrax. khaladkii bannaanka keenay xaqiiqda. weli waxaynu ku jirnaa dagaalkii qaboobaa. magaalada Sverdlovsk oo ka mid ahayd magaalooyinkii midowgii Soviet ayaa si lama filaan ah oo la arkay dadkii ku noolaa oo u dhimanaya cudur qarsoon oo aan la aqoon waxa uu yahay. Sovietka ayaa xilligaas sheegay in dadkani ay cuneen cunto wasakhaysan, balse muddo kadib waxaa la ogaaday in xanuunadan ay keeneen shil filanwaa ah oo ka dhacay shaybaar military oo sir ah oo lagu bacriminayay bakteeriyada loo yaqaano anthrax ayaa sababay in si lama filaan ah ay bakteeriyadan hawada ugu faafto, kadibna ay ku fido deegaanadii ka agdhowaa oo dhan. haddii aynu usoo noqono xilligan aan joogno, waxaa sii kordhiyay hubkan biolojiga ah waa kacaanka xawaaraha sare ku socda ee caqliga macmalka ah ama AI-ga. markan halista waxa ay gaartay heer aan hore loo arag oo ka kanaan daran ah. nidaamyada AI-ga casriga ah ayaa hadda awood u leh inay saacado gudahood ku naqshadeeyaan borotiino iyo fayrasyo gebi ahaanba cusub oo aan horay loo arag, halka markii hore ay saynisyahanada ku qaadan jirtay sanado cilmi baaris ah iyo tijaabooyin, taasoo ka dhigan inaynu wajahayno khatar ku aadan fayrasyo la bacrimiyey oo nidaamkii difaaca jirkeennu uusan wax xasuus ah ka haysan, kana dhigaysa la dagaalankooda iyo iska caabintooda mid aan suuragal ahayn ama ay adag tahay. maanta shaybaradan waxay si xawli ah ugu fidayaan dalal dhowr ah oo badankoodu la daalaadhacaya xasilooni darrada siyaasadeed iyo daciifnimo ka jirta kaabayaashooda kormeer, taasoo ka dhigaysa halista ugu weyn ee la filan karo.